ku soo dhowaada hoyga maansada Soomaaliyeed. bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa cabdirasaaq cabdiraxmaan maxamed oo loo garan ogyahay xasiliye. waxaan halkan kula wadaagnaa maanso la idhaahdo qoraal oo ku saabsan qalinka iyo adeegsigiisa. bi'i waa qoraalow, magacaygu waa qaaf, qowlkaygu waa weedh, qiimahaygu waa bashar, qisadaydu waa tii qumanaanka leexnayd. qofnimada waxaan ahay qaaraddani afriik baan qarqarkeeda bariga ah, hadba waxaa la ii qoray quud aan ku helayaa. qabyaaladdu siday tahay marmar baan yar quutaa, nabad baase ii quban. waxaan ahay qof kugu biday wanaag qaybihiisoo jecel qayla dhaanta. waxaan ahay qalloociyo qarfo iyo dhibaatiyo, qabyo nolol ahaatiyo, jabka qaybihiisiyo maskax layska quudhsado, nin qaraar ka joogoo quus ka taagan baan ahay. qaybsigeed adduunyada adigaa u qiil furay, imisaa nin quusoo kibir iyo qab weynaa, maalinkuu qoraal helay u qushuucay noloshoo qunyar socod ku dhiiraday. imisaa dalqiiqoo baaruudu qaraxdo, qayladu dayaantoo qoloqolo ishaystiyo laysku qaatay waramada qoraal lagu fadhiisiiyey. bi'i waaye qalin yahow, qofnimadu la'aantaa qasad iyo ujeeddiyo qiimo may lahaateen. noloshana qiyaasli'i qaran lama ahaadeen, maalmaha qoraalkiyo taariikhda kala quban looma qayb samaysteen. faa'iidiya khasaaraha qanac laguma yeesheen, qudha ruuxa kii jaray looguma qisaaseen. dadku qaafilnimadana qiil umuu sameeyeen, qiimaha tacliintuna qani may ahaateen, anna kumaba qaateen. balse qiiradaydani ku qofeeyi maantoo noloshana qorshaystee, mar haddaanad qolo gelin qabiil iyo dad gaarana qiimahooda muunayn. taydana balqayd oo qaraar gaadhay maantee, adnahay khasaarine qayrkay i gaadhsii.